shirkan maanta halkaan aan isugu nimi wuxuu daba joogaa shir ka sii horeysay oo siyaasiyiinta madanayaasha siyaasadda aan u qabanay kana waa kii bulshada kama foga ajendayaashu kii hore wixii aanu kaga hadalnay aan dadka u soo bandhignay marka koowaad anaga gudi ahaan doorka iyaga markaan sharaxo waa 3 qodob aan u xilsaaranahay marka koowaad soo xulidda urur siyaasiya waxaan kaloo u xilsaaranahay qodobka labaad yahay inuu u gudbo xisbi siyaasiya qodobka saddexaad oo noo raaca wuxuu yahay inaanu wacyigelin ummadii gaarsiino waxa kan siday u gaarayeen loo fahmi lahaa anagu horta intaas aan u xilsaaranahay intaas haddii raganimadaas iyo gacan aanu idinka helo aanu isla helana doorka iyagu intaas ku eegyahay marka laanta ugu badan waxay tahay oo aan sii raacsanayaa haddaan rabno waxa kan inaanu ku shaqaysano meherad ka dhigano teerankana dheeraysan lahayno ma aanu qaylinayno kuraasana fadhiinay laakiin waxaanu ka doorbidnay ummadayadana inaanu u adeegno u shaqayno annaguna sharaf iyo magac ka helo waxa xilkana saaranay aanu gudano qodobka ugu muhiimsan aan rabo inaan kaga baxo gabagabada wuxuu yahay Soomaalida waxa ku mahmadaa ceelna uma qodna cidna uma maqna waa garan kartaan macnaheeda ceelna uma qodna cidna uma maqna hawsha inoo taala iyo xaalkeena iyo duruufaha ina haysata isaga sheekaynayno maanta waynu garanaynaa aqoontii dalkaana tihiin waxaa kaloo tihiin inkastoo ay adag tahay sidaad uguba soo gudbi doontaan dadka la yiraahdo mustaqbalka Brito dadkii ahaabateen marka waxaad ku heli karaan mustaqbalka Brito aniga iyo intaga waaweynaa iska horwareejisaan sidaas iskaga horwareejin lahaydeen waxa weeye waa dowgan soo amadaan waxaan idinka rabnaa gacan siisaan hawshaana naga saacidaan doorka aad ku leedihiin ka bulshada rayad ahaana aad ka qaadataan khudbadayda munaasabada kaga talagalayna waxaad jeedinayaan xogayaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام يا أقول وزير الدولة وزير كوزارة الورقافينتا. قدي قدر شوي كوري قدميها قدي قدميها في شيء برشلونة رأيت كقيمة هذا كلام جديد يا صحافة. وأنا كنت جاهز يا خطبة رسمي قاعد قدي قدر شوي كبنت لأنه وترى كلامات مناسبة اللي جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. guddiga doorashooyinka Puntland ee ku meel gaarka ah waxa uu wakiilada bulshada rayidka ah uga mahad celinayaa ka soo qaybgalka kulankan looga tashanayo hirgelinta dimuqraadiyad ka halaqaada deegaanada Puntland ujeedooyinka kulanka waxaa ka mid ahaa in la soo bandhigo waajibaadka guddiga iyo sida isla markaa guddigu u arko kaalinta bulshada rayidka ah kaga aadan dimuqraadiyadda Puntland sidoo kale guddiga doorashooyinka Puntland waxa uu bulshada rayidka la wadaagayaa faa'iidooyinka ku jira iskaashi dhexmara labada dhinac waa guddiga doorashooyinka Puntland iyo bulshada rayidka guddiga doorashooyinka Puntland waxa uu leeyahay waajibaad dastuurka Puntland iyo sharciyada kale ee Puntland u yaala ku qeexan waxaana ka mid ah in kooxaha bulshada rayidka ee daneeya siyaasadda uu siiyo macluumaadka la xiriira isla markaana ku habboon sidii ay u mutaysan lahaayeen inay bulshada rayidka ay noqdaan ururo siyaasadeed in danayaasha bulshada rayidka uu kormeero si uu u hubiyo inay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ururo siyaasadeed in guddiga doorashooyinka Puntland uu siiyo shahaadooyinka noqoshada ururo siyaasadeed danayaasha buuxiya shuruudaha looga baahan yahay in uu abaabulo guddiga doorashooyinka isla markaana uu hirgeliyo doorashooyinka koowaad ee golayaasha deegaanka Puntland ama dowladaha hoose bulshada rayidka ee Puntland waxa ay ka kooban tahay muwaadiniin is abaabulay oo isu xilqaabay in ay u adeegaan shacabkooda bulshada rayidka waxa ay kaalin wax ku ka qaataan adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha u qareemida xuquuqda aadanaha sinaanta bulshada iyo wacyigelinta iyo adkeynta nabadgelyada iyo waliba xalinta khilaafaadka bulshada dhexmara bulshada rayidka waxa ay leedahay xiriir saddex geesood ah oo kala ah koow xiriirka bulshada labo xiriirka dawladda saddex xiriirka beesha caalamka
intaas waxaa dheer xiriirka bulshada rayidka dhexdeeda ah si ay isaga kaashadaan horumarinta adeegyada ay bulshada u hayaan iyo guud ahaanba kor u qaadida baraaraha bulshada Puntland. guddiga doorashooyinka Puntland ee ku-meel gaarka waxa uu bulshada rayidka ah ee Puntland ugu yeerayaa inay yeeshaan xiriir sokeeye waxauna aragnaa inay doorashooyinka iyo guud ahaanba dimuqraadiyad ka hirgasha Puntland ay tahay mas'uuliyadda koowaad ee guddiga laga rabo in uu guto isla markaana waa waajib muwaadinimo. kulankan aynu maanta isugu nimi u dhaxeeya guddiga doorashooyinka ku-meel gaarka ah ee Puntland iyo bulshada rayidka ah ma noqon doono kii ugu dambeeyay lamana huri doono in la yeesho jadwal iyo wada shaqayn joogto ah oo dhex marta labada dhinac. si markaa si gaara waxaan maanta halkan idin sheegaynaa kow sidee u aragtaan qaabka ugu habboon ee loo dardargelin karo hawsha guddiga doorashooyinka Puntland uu u hayo ummadda Puntland. labo qodobka kale ee guddiga doorashooyinka ugu yeeray bulshada Puntland maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ah kaga aadan dardargelinta dimuqraadiyad ka hana qaada deegaanada Puntland. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wabilaahi towfiiq. waxaan rabaa occasionkan uga faa'iidaysto maadaama aad ka wada hadlayseen sidii loo samayn lahaa ururo mustaqbalkana noqda xisbiyo. waxaan rabaa inaan la wadaago maanta in aniga iyo rag aan ku jirno inaan ku dhawaaq in la qaybsanayno inuu jiro inaan ku dhawaaqno urur siyaasadeed raba inuu ka hawlgalo Puntland iyo Soomaaliya. ururkaas waxaan rabaa inaan la qaybsado inkastoo curdin yahay inaan la qaybsado magaciisa waa ururka ummadda. afka ingiriiska wuxuu noqonayaa The Nationist Party. afar arrimood baa u ah aasaaska mustaqbalka uu rabo inuu ku soo kordhiyo Puntland iyo Soomaaliya. waa ah siyaasad degan, dhaqaale degan, military degan oo hubka dadka laga dhigo cinaha military stable iyo dad isku xiran wada hadal iyo reconciliation ku wada noolaada. xisbigan waxa rabaa inuu tartamo dhammaan ururka xisbiga noqonayna laakiin xisbiga ummadda waa magaciisa la yiraahdo xisbiga ummadda. marka xisbiga ummadda wuxuu rabaa inuu tartamo heer degmo, heer mataqaanaa dawlad goboleed iyo heer federaal. ururkan wuxuu qareemi doonaa arrimaha hadda idinku weydiinayseen oo ah free, fair and inclusive election. waxaan rabaa inaan la qaybsado waxaa laga yaabaa is dhahdaan yaa xisbigan ka mid noqon kara. qof kasta oo Soomaaliyeed uusan u diidayn sharciga dalku waa ka mid uu noqonayaa. sababta constitution baan leenahay, constitution-kaasaana waafaqsan yahay. wixii constitution-ku diido ururkaasi constitution-ku waa constitutional institution. waxyaalaha aanan xiisayna waxaa ka mid ururka ka mamnuuc ah inaanu dadka cayno. aflagaada waa naga mamnuuc, qabiil waa naga mamnuuc, gobolaysi waa naga mamnuuc, khilaaf waa naga mamnuuc. in waqti gaaban wax lagu gaaro dil lagu gaari waayana fawdo la sameeyo waa naga mamnuuc. mustaqbal dheer baan leenahay. raalli noo ahaada aynu isdhegaysano waqtigu yoona ka lubin. waxaan mar labaad u soo istaagay marka koowaad dhawaaqa dheer oo cabdirashiid maxamed uu halkan markhaantiga inooga dhigay waan soo dhawaynaynaa ka guddi ahaan. annagu laakiin guddi ahaan waxaanu urur u aqoonsanahay ururku markuu noo buuxiyo shuruudaha laga doonayo, shuruudaha laga rabaa, shuruudahaas markuu buuxiyo baanu urur u aqoonsanahay. waxaanu xisbi u gudbi karaa isagana markii shuruudaha laga rabo maxay ahayto uu buuxiyo. laakiin cabdirashiid waa bilow fiican. waxa dhimanna waa isla dhammaystiraynaa, waana ku soo dhawaynaynaa. inta kalena waxaanu tusaale ay u noqonaysaa ku dhiirasho
bay u noqonaysaa tusaale wanaagsan intaasaan ugu noqday waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan anigu oranayaa faadum ahaan in aynu qaadano roolka ah sidii aan bulshada uga wacyigelin lahayn annaga oo civil society isku duuban oo aan kala reebin sidaan u qaybsan lahayn guddiyada hadda nuur shirc ismaan sheegay inaynu maaragtay aan ku bays garayno wacyigelintii anagana laga rabaa wixii dhaqaale aan ku biirin lahayn inteenaan qof walba meel buu kasoo jeedaa civil society ama ha noqdo mid dhaqaale haya oo dowladda u haya ee shacabka u haya oo sida kambaniyada halkaa kasoo jeeda raggeeda dhaqaale haye ya xoogaaga in ay maaragtay qolada tan jaamacadaha waxaan ku boorinayaa in ay keenaan dhalinyaro diyaar u ah oo ka qayb gasho oo dadkii gaarsiisa oo iyagu balateeri ah diyaar waa dhalinyaradu waa diyaar waa meesha kaliya oo aan ka helayno dad diyaara oo aad u shaqaynaya oo niyad u haya oo rabo isbeddelkeena ka qayb galaan midda kale oo ah annaga qaybtayadaan NGO-yalayda ah waxaan ka qaban karnaa wacyigelinta qayb baan ka qaadan karnaa anigu faaduma ahay diyaar baanu ahay qaybtaydii samafal development organization baan gudoomiye ka ahay talawadaagna gudoomiye ku-xigeen baan ku ahay networkii sahray anaga wax ka aasaasnay oo gabdhaha loogu doodayay 2013 inay masraxa siyaasadda kasoo qayb galaan saxaafadii baa joogto oo qaybtooda qaadan karaan qaarkii message-yada bay samay yaqaanaan oo formulate gareeya sida maaragta fariinta loo sameeyo wacyigelinta yaqaanaan oo qayb baan ka qaadan karnaa qaarkayada jaamacaday dhigaan oo jaamacadaha bay maaragtay waxay haystaan meel platform ay wacyigelintii dad dhalinyaraha farabadan ka gaarsiiyaan oo ka geyn karaan ururada qaarkoodna hadda ka hor doorashadii federaalka ay ka shaqaynayay oo kaalmo kala duwan ka qaato farsamo ahaan u caawin kara marka anagu kolba sida xuseen sheegay waxaanu diyaar nahay inaanu mataqaanaa la shaqayno guddiga inaanu hawshaas dimuqraatisationka oo puntland laga samaynayo aanu u helanahay sidii loo hirgelin lahaa loogana gudbi lahaa maaragtay hanaanka hore oo qaabeeleedka ku dhisnaa doorka dawladdu muhiimadeedu waxa weeye dawladdu inay abuurto samayso diyaariso saaxaddii iyo masraxii uu ku dhici lahaa dimuqraadiyad ay ka mid tahay doorasho hal qof hal cod ah okay waxaa ka mid ah waxa laga rabo shuruucdii samaynta hay-addii arrintaa qaabilsanayd sida guddiga doorashooyinka waxaa ka mid ah wacyigelinta waxaa ka mid ah fududaynta waxaa ka mid ah in habay qareemidda iyo wax lamid waa iska garanaysaa jawi arrintaas ku dhici karto masrax hawshaa lagu qaban karo garoon lagu ciyaari karo in la sameeyo oo xora xilligii hore oo dowladdii cabdiraxmaan fulan anuu guddoomiye gobol baan u ahay waxaa lahaa xukuumaddu dheeraysa iyadaa wax ku rabta waxa kan xaggee u ordaysaa iyadaa rabta inay ku shubato saatanay tahay waa in la diido anuu guddoomiye gobol baan ahaa mogta haddana waxaa leeyahay dadweynuhu maalin walba meel looga baxo waa hashii ninka gurani dheelmay dhinacna uma fayooba haddaad tidhaahdid war wax furta anuu fasilitiga iyo wixii dhaqaalaha iyo wixii aan qaban karo baa idinku siyaadinaynaa ee hala furto haddii la yidhahdana waxaa leeyahay dawladdu waxay uga gaabinaysaa iyadii baan rabin haddii dawladdu is soo qadintana waxaa leeyahay dawladdu iyadaa rabta inay ku shubato dhinaca mana uga baxsanayno marka waxaa la rabaa dadka laga raba inay xisbiyada furtaan dadka laga raba dimuqraadiyadda inay ka shaqeeyaan dadka laga raba dawladda inay ku challenge gareeyaan oo ogolaysiiyaan iyagoo wixii doonaya dawladduna aragto inay dadweyne waxaanu ka go'an tahay horta waa intiina halkaan fadhida dawladda laftigeedu hadday aragto dad wixii doonaya oo furanaya oo ordaya oo dadaalaya oo dimuqraadiyad raba hadday aragto dawladdu dadkay raacaysa dawladdu dad ka harimayso intaas haddaan ka gudbo ka mahadcelintaas saddex eray baan rabaa inaan ku soo ururiyo nuqurka aan isleeyahay waa gundhig bay u tahay fikraddii iyo talooyinkii badnaa oo aynu ka hadlaynay kow isku tash bal aynu inagu isku tashano inteenu bal cid kale wax ka sugi lahayn horta bal inagu aynu isku dayno
inaynu dhaqaaqi karno waxaa ka meel marsan karno aan isku tishan waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu noqonayaa doorka xukuumaddu ay ku leedahay arrintan iyadu inay hormoodka noqoto waana samaynaynaa waxaana jecelahay in war degdega arrintaas aad naga heli doontaan aysan aamusnaan doonin arrintu doorka saddexaad oo isaguna meesha ku jira wuxuu noqonayaa bulshadii rayidka ahayd ama shacabka reer puntland sida hadda uu sharaxayay walaala cilal oo guddiga nambarka doorka aad leedihiin dhulkuna inaad qaadataan qodobka afraad oo ku ururinayaa wuxuu yahay baaqa keliya oo isagana dirayo oo ah qoladii hadda inay ka tagtay EU-da iyo beesha caalamku roolkooda iyaguna inay qaataan waxaan is oran karaa afartaas qodob ama saddexdaas qodob haddii aynu sidaas ay u socoto aynu isla qaadanay aynu u hirgasho in wax badan inoo qabsoomayaan intaas baan nuxurkii aan ku soo ururin lahaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa shirkuna wuu inoo xiran yahay shirkaayna ma noqonayo kii u dambeeyey waa soconayaa waa idin mahadcelin wanaagsan